way waxaynu maraayay qaybta bucket typeska aad ay muhiim u tahay once aad fahantaan waxay idin sahlanaanaysaa hadhowda markay troubleshooting aan sameynayna in aad automatic ogaataan cilada meesha ka jirto way bucket types maxaa laga wadaa bucket horta daa maqasho waa data bucket daa maqasho waa data frame daa maqasho waa data waxaas oo dhan data laga wadaa un xog la diraya laga wadaa right so inta waxaan ugu qoran marka bucket type iyo description faahfaahinta ugu qoran marka ugu horeysa hadii aan soo qaato qalinkeeni okay waxaan haysanaa of course laba router aan haysanaa simply router kan markuu rabo inuu communication la sameeyo this router waxa ugu horeeyo adeegsanaya waxay tahay hello adeegsanaya hello maxaa waaye wuxuu u sheegi doonaa router ka wuxuu leeyahay routing table uu leeyahay hore waa la ogaadeen soo routing table maxaa waaye xogtii adeeg aad taqaani iyo kuwa aad barto waa meesha aad soo gelinayso hello marka aad direedo remember routing table kaada xogta ka jirta dhana maxaa u diraysaa router kana u diraysaa okay hello marka waxa loo yaqaanaa discover in labada router ayaga is bartaan okay hello ga markii la diraayo reliable maya waa unreliable okay unreliable maxaa qofkan daatada u direedo inuu response ku siinayo in kala ma taqaanid okay formatka marka aan isticmaalayno waxa loo yaqaanaa multicast ayaa loo yaqaanaa hello deena maxay tahay waa multicast maxaa waaye ana waxaan dirayaa data waxa uu dirayaa multiple routes oo diraya those multiple routes waxa laga yaabaa mid inuu isu jawaabo midna inuu isu jawaabo that's why marka aanan ahayn reliable hadii aad ku aragteen imtixaanka marka hello bucketska waxaa la isticmaalaa multicast number 224005 ama waxaa la isticmaalaa 224006 labada number hadaa aragtid ogow in laga wado hello buckets router kan daatada loo soo diray hello ga ah markii uu rabo inuu response gareeyo intoonan asigana hello dirin wuxuu sameynayaa daatadii uu qabanayaa uu acknowledge gareynayaa ACK maxaa waa acknowledgement maxaa waa yes daatadaada waa aqbale waa arkay thank you so much anigana marka waxaan kugu soo dirayaa hub unicast maxaa waa adiga fariinta waa iska soo dirtay 100 qofood oo aniga ficiya u soo dirtay right aniga soo jawaaba aniga marka soo jawaaba 100 qof muu jawaabay adaa ku soo jawaaba waa unicast okay waa direct one to one okay acknowledgement yaa loo yaqaana acknowledged waa aqbale okay anigana hadhow maxaa sameynayaa hello baakeedaan diraaya hello gaas diraaya maxaa waay aniga waxa aqaana bisa u sheegaya wixii asi aan ka bartay for example one hada asi ka bartay aniga waan gashanay hello baakeedkay one ma raacsinaya no one ma raacsinaya waxaan diraaya 2 aan diraaya 3 aan diraaya yani baakets ama daatada aniga aan aqaano hello dhax diraaya aan ku dhax diraaya okay waa isbaranay database waa isweydaarsanay everything is good okay muddo ka soo wareegatay okay labada router muddo ka soo wareegatay let me clear again and draw grano muddo ka soo wareegatay laba linki oo ahay for example linkigan kora go'ay waxa la sameeynaa update la sameeynaa update maxaa waay update ka waxa la configureyna ama la isku diraya routing informations destinations let's say forget about it linkiga go'ay okay walis bartay update maxaa la isku diraya qofka kale daatada uu haayo u diraya okay xagga linkiga waa iskaaga iimaanina partial update okay markii update kan la diraayo nooca la isticmaalayo maxaa waaye daatadaada waa reliable RTPL reliable transport protocol because markan waa isnaqaanaa waa isbaranay we are neighbors okay we are adjacents now data kasta ku soo diraayo waa very reliable and very secure daatadaas marka maxaa isku diri karnaa hub oo one to one waa isku diri karnaa multicast waa isku diri karnaa multicast maxaa waaye again hadii inta router kale aan dhigno maxaa sameynayaa update kan u diraya kan waa u diraya that's update query maxaa waay afan meesha halaad gareynay kana aadaya query maxaa waay marka query waa asking questions okay for example waxa rabtaa one information inta waxa yaala PC yaalo network yaalo this network kaliya harabta nooc u dirsato waxa leedahay hey I see that you have a network there I want to know that network and that's query okay jawaabtaada si automatic routing table kaada lagu soo gelinaa reply query ga marka aad dirtay cidda soo response garaaneedo this is not acknowledgement acknowledgement already waa isbartay okay
marka la noola baahno barasho wanaagsan marka la looma baahno. This time maxaa waaye query, I have a question, you reply. Okay, marka ugu horeysa maxay tahay hello, discovery waa are you there, then maxaa waa acknowledgement, yes I am, then updates. markii aad barataan updates la isku diraya. Oh, I have this network, you have this network, we have this network. Again muddo kadib maxaa la sameynaya, waxaa u jeedaa networkaas inay isticmaalaysid, please I want to know that network, you reply to that query. Okay, respond to a query. This marka bucket typeska oo OSPF ku leeyahay is so important marka inaad taqaanaan bucket typeska. waxay idinka caawinay imtixaanka inaad ku baastaan. Okay, waatana marka ayadoo la isku diraayo saddex ru tiraayasna R1 markuu communication la sameynayo hello oo diraya, kan kalena hello bag oo soo diraya. Hay waa hadli kartaa open. Ustaad Halmar waxaa ku celisaa reply query. Okay, reply query. Okay, kana ku baranaynaa inta ku baranaynaa kana ku faahfaahinayna waa maasan tahay su'aal insha Allah inta ku qaada adiga. labada router marka ugu horeysa is baranayaan discovery ay sameynayaan waxay adeegsanayaan hello packet adeegsanayaan. That is number 1. hello packet-ka maxay faa'iido u tahay hello packet-ka? waxay faa'iido u tahay labadan inay is bartaan. say isku baranayaan, kan wuxuu leeyahay yes ani R1 ahay network-gaana ugu xiran, adiga diyaar mu tahay inaad communication kula sameeyo. This router muxuu sameynaya acknowledgement yuu sameynaya. Acknowledgement maxaa waaye yes I accept your hello, salaantaada waa aqbale, yes and I'm sending you hello packets which means I have a networks too. Okay, markaan wax network am lisweydaarsanayo laakiin waa la isbaranayaa. Okay, waana ku dhahay Cabdiqaadir ma fiicantaa see waaye. Okay, glasskan ustaad kusoo dhawow arday aad joogto, laakiin ardayda full details ima siinin, right? inay arday joogtaa ay sheegtay, and that's hello packets. Okay, hello packets markuu dhaco oo la isbarto maxaa ku xigaya updates ku xigaya. These updates, okay, these updates maxaa waaye R1 wuxuu leeyahay yeah I have xyz qaado routing table kaada gasho. R2 muxuu sameynaa asigana yes I have this update gasho routing table kaada. hadhoodi haddii lacalla uu go'o network hore routerka muxuu sameynaa update oo soo diraa, wuxuu leeyahay remember the network aan kuu soo diray, yeah now that network is down. maxaa waa update why? Because we already established the neighbor relationship, right? That's why updates oo muhiim u yahay. routerka muxuu sameynayaa sida hello da camal acknowledge gareena, wuxuu leeyahay acknowledged that network routing table kayga waa ka saaraya. sababta ugu saaraya maxay tahay? Because hadhowda hadduu rabo data inuu diro xisaabta hadday usoo gasho lacala network-gan go'ay hadday lacagta xisaabta usoo gasho wadadaas ku diraya, and that already wadadaas way go'day, waa inuu routing table-ka ka saaraa. mila fahanteen guys hadda update iyo hello iyo acknowledgement? Okay, way waxaa u imaanaynaa marka query iyo waxaa u imaanaynaa reply. Remember hadday update soo dirin oo aan dhahayno remember this network wuu go'aan soo dirnay, update aan kusoo dirnay maahano, update-kii router-kana u soo dirnay. router-kana maanta muxuu sameynaa asaa query diray for example. It's okay. Okay, wuxuu leeyahay hey the network ay sheegtay is it still down, weli ma dansan yahay niyo. Okay, router-ka muxuu sameynaa reply soo dhaca. reply maxaa waaye yes that network is down or that network is up. and simple maxaa kaloo dhigi karnaa diagram-keena siduu ku qoran R2 wuxuu soo diray query oo soo diray. query maxaa waaye query wuxuu leeyahay hey do you still have the network ani aan kuu soo diro down ku ahay, do you still have the network query waa okay networkii waa dansanaa aan ku dhahay routing table-kaad ma ka saartay. R1 muxuu leeyahay marka reply uu diraya yes already waa remove gareeyay. Okay, already waa remove gareeyay. sidoo kale haddana kan muxuu leeyahay hey remember network oo down aan kuu soo diray, because maanta oo dhan update isku dirayaan. one time update-ka loo soo diraya, second time update looma baahan in loo soo diro because network-gaada jam oo noqonaya. query maanta oo dhan su'aal iyo jawaab la diraa. Okay, still network-gii waa dansan yahay, do you still have on that in your routing table? kan muxuu diraya marka reply oo diraya no waa remove gareeyay. hadda ma fahanteen query iyo reply? haye imaka lugtii goday communication ay isku direen inay lugtaas disan tahay
ay isla qaateen maaragtay haddii hadhow talo dib loo soo daaro markii hore markay tani goday loo balangareeyna mid kale lug kale iskugu daro daatada tii hore markii hore goday dib loo soo daaro maxaa dhiba imanaya okay hadda lugtaana go'need haddaay lugtaa markay go'da update ahaan usoo sheegay maahano daad lugaa go'day hadda si uu u kiib gareeyo diriskiisuna u xaqiijiyo oo ugu sheegay inay lugtaas weli go'an tahay wuxuu ugu soo dirayaa hab su'aal ahaan ugu soo diraa war ma xasuustaa lugtaas go'need weli ma haysataa nin kastoo marka wuxuu ku jawaabaa maya hadda su-aashaas u fahmay haddii lugtan active laga dhigo on laga dhigo ma query la soo dirayaa mise update la soo dirayaa saas u fahmay hadalkaada ee xared sax soo ma okay update la soo dirayaa this time query ma la soo dirayaa update la diraa update maxaa waa yay congratulations the link is up that's update kan maxuu sameynaa markaas acknowledgement yoo sameynaa okay this network hadda maxaa ku darsanaya routing table ka ku darsanaa ma fahantaa xared update waxaa la isku diraa markay wax xaalad dhan isbedesho xaalad dhan markay isbedesho update la isku diraa qofku markuu aqbalayana acknowledge waayo query iyo reply waxaa la isku diraa markii xog la isku sheegay xogtaasna la diiwaan geliyay amaanto dhan la isku sheegaya leeyahay weli lugtaas way dansantaa weli waa dansantaa right okay nooca query-ga la isku diraayo either wuxuu noqon karaa multicast ama wuxuu noqon karaa unicast maxaa laga wadaa hadda routerkana update dirooyo intan uu ka dirooyo unicast miya mise waa multicast maxay idin kula muuqataa multicast way of course multicast waay because laba interface uu leeyahay labadaba uu ka dirooyaa okay kan kalena waa sidoo kale ya waxaa u imaanaynaa marka EIGRP messages fariin markaa dirayna anaga packet aan dhahnaa packet markaa dirayno packetkaas wuxuu yeelan doonaa frame uu yeelanayaa alright frame maxaa idinku sheegay frame markastoo aan data dirayno bashqada tusaale aan u qaadano fariinaan qoro waxaan qoray hello aan qoray waraaqada ku qor waraaqadan waxaa rabaa inaan xareed u diro xareed wuxuu joogaa gaalkacyo joogaa hargeysuu joogaa for example right waraaqadan markii aan qorayo waxaan qorayaa sharafaad diray ujeedada waa xyz waxaa loo dirayaa xareed waraaqadan maxaa sameynaa waa soo qaada waa isku laalaaba bashqadaan gelinayaa maano maxaa sameeyey frameaa geliyey bashqada maxaa waa frame haddana bashqada dusheeda waxaa ku qorayaa sharafaad diraayo xareedaa loo diraayo maxaa sameeyey haddana data sameeyey processkan hadda fiiri datadan oo hello oo waraaqada ku doran oo ku qoran markaas uu dhex gelinaya bashqada waxaa loo yaqaanaa encapsulation haddaa encapsulation idiin soo sheegino encapsulation maxaa waaye waa data under data la dul saara waaye waa frame okay framekan hadda markaa soo qaado waxaa u geynaya DHL u geynaa DHL markaa u geey maxaa sameynaya bashqadeeda ee maxay sii gelinaya again haddana bashqad weyn ay sii gelinaya bashqadeeda maxay sii gelinaya bashqad weyn ay sii gelinaya dusheeda maxay ku qoree DHL aad dirooso magaaladaas loo dirooyaa cidaan aad dirayso cidaan loo diraa maxay samaysaa again encapsulation ay samaysaa meeqa encapsulation ay sameeyay hadda processkan yaa ii sheegi kara meeqa encapsulation labada maxaa waaye kow anaa soo qore bashqadaan geliyey encapsulation waa maano DHL u geynay DHL maxay samaysay daatadeedii ayadoo sideeda waxba ma ka bedelin maxay sameeyday bashqad dheeraaday geliyay encapsulation kala sameeyay maano okay waxaan marka dusha lagu qoraayo waxa loo yaqaan marka frames frameka maxaa ku cad yaa diraya yaa loo diraya intaas ma cadahay okay any network protocols oo data diraayo wadadaas oo mari doona way EIGRP marka muxuu kaga dugan yahay EIGRP wuxuu leeyahay data link connector waajib waay kan waa layer 2 waa data link because data link maxaa lagu sheegaa source MAC addresska iyo destination MAC addresska waa layer 2 kan waa layer 3 I think inaad fahmaysaan layerska because maro explanation ku laabto OSB maxuu ahaa OS model-ka si fiican u soo qaadaa dhignay waa idin sheegay inaad isticmaalayno luqadda la yiraahdo L2 L3 L1 right this maxaa waaye data link layer this maxaa waaye network layer okay network layer oo layer 3 ah network layer maxaa lagu sheegaa isna IP-ga datada diraayo IP-ga datada loo diraayo meeshaana marka anaga imaanayna intaan waa shaqo oo waajib ah oo markaas la soo maraayo protocol ka soo marka meesha ka bilaabanayo meesha EIGRP asiga muxuu leeyahay packet header oo leeyahay packet header muxuu ku cadeeyaa marka
wuxuu isticmaala wax loo yaqaano OBO code. OBO code hadhowda gaal ka fasirayna insha Allah. OBO code waxaa lagu caddeeyaa, remember, waxaa lagu caddeynayaa daatada nooca aan dirayno. Okay, OSPF sidoo kale wuxuu leeyahay wax la yiraahdaa TLF. TLF maxaa laga wadaa? Type length value. Type length value maxaa waaye? daatadan aan dirayo nooca ay tahay. waxaa caddeynaya EIGRB version numberkiisa 001. EIGRB ga version uu yeelanaya, remember. kadib waxaa caddeynaya haddana daatadan aan dirayo internal miya gudaheyga shirkadeeda dhexdeeda maa ku diraya, meeshaana lagu caddeynaya. Okay, ama daatadan aan dirayo waxaa rabaa inaan u diro wax ka baxsan network-geega external. inta mila fahanteen? alright, so remember EIGRB ga OBO code isticmaala. OBO code ka waxaa hoos imaanaya waxa la yiraahdo TLF, type length value. type waa EIGRB, parameterska ama lengthiga uu EIGRB ga daatada uu qaadayo. nooca internal maya oo gudaha bis laba qof oo meel wada joogta, laba router oo wada shaqeynaysa baa daatada isku diray, ama network ka baxsan oo diraya. intaas meel igu haya. okay, maxay idin OBO isticmaala? OBO code maxaa laga wadaa marka? OBO code ka waxay specify gareedaan nooca EIGRB ga isticmaalayno, khaasatan packet type ka aad dirayno, nooca fariinta aad dirayno. hello miya, update miya, query miya, reply miya, acknowledge miya. fahmaysa? this is marka the frame. intaan hore usoo sheegnay labada xabo naga reeba, because data link oo L2 L3 ga must waa meesha arma aniga waa kana. EIGRB wuxuu isticmaalaa OBO code oo isticmaalaa this code oo isticmaalaya. OBO code maxaa gelinaynaa marka anaga? let me take my pen. OBO code ka colorkan oo yeelana ogaada. waxaan kale waa wax natural ah oo frame kaada uu leeyahay. every frame ale. okay, every frame ale. OBO code ka uu imaana marka. OBO code maxaa la geliyaa? hadda autonomous system aan ugu jiro AS number. autonomous system I think hore inaan idinku soo sharaxo OSPF ka markaa joogna, right? okay, inta fiiri EIGRB parameters. parameter maxaa ah? parameter waxaa laga wadaa, for example, inta glass ay yaalo. okay, this is glass. glasska waxaa leeyahay godkan dhankan markaa joogo waa number 1, godkaana markaa joogo waa number 2. okay, waxaa ku leeyahay markaa rabo inaa area soo aado what ama which parameter aan isticmaalaya si aan u aqoonsado. okay, waxaa leedahay si aad u soo gaarto number 1 waxaa isticmaalaysaa parameter 1. okay, that's parameter. okay, inta fiiri marka TLF ka ku jiro parameterka maxaa waaye? key values, bandwidth, delay, load balancing. okay, aan sawiro. okay, inta waxaa sanaa router, intana router. okay, computer inta yaala waxa rabaa computer inta yaala inuu communication la sameeyo. parameters ka isticmaalaysa maxaa waa key values wax la yiraahdo. key values maxaa waa? calculation aan la isticmaali doona, bandwidth aan la isticmaalayo. waxaa leedahay linkigan bandwidthkiisu waa 2GB. linkiga daatada tira bandwidthkiisu waa 2GB. linkigan bandwidthkiisu waa 10GB. linkigan waa 20G. linkigan waa 5G. adina maxaa rabtaa inaa inta gaarto? these marka GGS idin sheegaya maxay tahay? waa parameters. okay, waa parameters. okay, key values anaga u xisaabinaynaa, remember key values. waaye kaas ka soo tag. waxaan imaanaynaa TLF ka type length value. marka soo la type length value isticmaalayna anaga meeshaas maxaa ku sheegaynaa wixii frame anaga aad dirayno. markaan internal routers oo meel yaala communication sameeyna within the organization maxaa la xisaabinayaa? OBM kaad maxaa soo hoosgalaya? OB code kaad maxaa soo hoosgalaya? daatadan yaa u diraya. okay, router ka aan sawiro. hurmuuday dhex yaalaan, waxaan dhan hurmuuday yaalaan, waa hal xarun. router kaana wuxuu rabaa inuu router kaan la xiriiro. okay, si uu la xiriiro muxuu isticmaalaa wax la yiraahdo knock stop. computer inta yaalo wuxuu leeyahay si aan u gaaro computer inta yaalo next stop-keyga yaawa. computerka next stop-kiisu waa kana. routerkan si daatada u diro wuxuu leeyahay which is the best path. algorithmka uu isticmaalaa, laakiin for now aan dhahno next stop-keyga waa kana. okay, routerkan markii uu imaado wuxuu leeyahay next stop-keyga yaawa. this is my next stop oo aan data ku diraayo. ila fahanteen inta? kadib haddana maxaa la xisaabinayaa? delay maxaa waaye? aniga si aan data usoo diro aan inta u keeno waa 3 seconds delay. again si data usoo diro inta u keeno waa 2 seconds delay.
again si inta uu keeno waa 1 second delay okay delay maxaa waay data markaad diro mid kale aan ka daba diraayo ayuumay baxaysaa mise space u dhaxeenayo that's what we call delay again hadda maxaa xisaabineena bandwidth aniga linkigayga 1G marka ani communication la sameynayo routerka markuu la sameynayo waa 2G routerkan computerkiisa markuu la sameynayo waa 5G kaas maxaa laga wadaa again waa bandwidth haddana maxaa waa MTU maxaa laga wadaa maximum transmission unit laga wadaa okay MTU aan wax yar sharaxno MTU waxa laga wadaa linkigan cabirkiisa waa 1518 waa default waa 1518 1528 waa ka yareey kartaa haddii aad ka badiso wuxuu noqonayaa wax la yiraahdaa jumbo alright again waxaa xisaabinaynaa haddana hub count next hub aan sheegnay next hub kan kugu xiga waa hadda marka si adigoo inta jooga u soo gaartay inta meeqa wadaa mare 1 2 3 4 wadaa soo maraysa si aad u soo gaarto your destination that's hub count again maxaa xisaabinaynaa reliability kalsooniga lugta aan ku qabi karno loadka reservedka and lengthiga datada destinationka sidaas ku soconaysa waa markii internal ay tahay way yarta waa arkaysa framekaada waa yaryahay laakiin external markaa noqoto maxaa dhacaya external markaa noqoto datadaadii hore u isticmaalaysa framekaada hore u isticmaalaysa maxaa lagu kawaaya frameka loo dheeraada lagu kawaaya intaana lagu kawaaya maxay tahay delaygi bandwidthki maximum transmission unitkii inta aad taqaanaa lagu sii darayaa okay yani inta aad taqaanaa maxaa lagu darayaa intaan dheeraada lagu darayaa next hopkii yaa soo originate gareeya datada intay ka socotaa tan systemkaada arbitrarygaada muxuu yahay yani xagaasaa lagu darayaa idinkaa tartiib iskaaga fahmi doonaa hadduu ilaahay idmo right laakiin hadda daada fahmin waa weydiin kartaan again intaana ka gudbin mawduucan so mar waliba xogtaadii aa haysatay internalka ah marka external aa la aadaysid waxaan weydiin doonaa EIGRP protocolka isticmaaleedid autonomous systemkiisa yani ID numberkiisa arbitrary tag wax kala maahan just cadday OSPF kaada versionkiisa yaa diraayo autonomous systemka diraayo number 1 aa diraayo yaa soo originate gareey router 1 aa soo originate gareey intee la marsiinaya router 2 aa la dhex marsiinaya alright any question so far okay well, let's go waxaa imaanayna marka EIGRP configuration sheekadii hore waa bedelayna ayuu waxaad configurationka inaan sharaxno haddana theory aan sii wadano waa joojinayna sheekadaas hadda waxaan sharaxaynaa marka EIGRP qaabka loo qoro practice-kiisa sameynayna session-kiina xaggaas ku ekeysiinayna waaya implementation EIGRP for IP version 4 anagu isticmaalayna waayay inta waxaa ku haysanaa saddexda router afarta router aan sawiri doonaa midna waxaa aqoonsanaynaa shirkadda internetkana siineeda midna waxaa aqoonsanaynaa xaafadayni ama shirkadayni waa aqoonsanaynaa EIGRP-ga remember waa dynamic routing maxaa ah router kasta waxaa loo sheegi doonaa network uu yaqaan for example router 1 meeqa network uu yaqaan ay sheegi karo router 1 internet network uu yaqaan muxuu yaqaanaa haye yaa kale okay saddex network uu yaqaanaa kow saddex network yes labo saddex hayloobin waa directly connect saddex network uu yaqaanaa saddexdoo yaqaana bisa loo sheegaya hadhowda muxuu sameynaa marka hello uu diraya kan acknowledge soo diraya hello soo diraya again update uu sameynaya update maxaa waay I know this network and this network and this network router kan muxuu sameynaa router kan already muxuu yaqaanaa router 2 muxuu yaqaanaa this network uu yaqaanaa maano muxuu leeyahay oh thank you this network and this network ka qaadanaya asna muxuu leeyahay I know this network and this network and this network uu soo diraya muxuu ka reebay kii uu ka reebay horizon maxaa loo yaqaanaa horizon aa loo yaqaanaa was kugu soo laabanayna hadduu ilaahdo all right so each router EIGRP-ga markaa isticmaalayna waxaa waajiba inaa adeegsano wax loo yaqaano autonomous system AS autonomous system maxaa waa collection of networks under the control of single authority kaas maxaa aqoonsanaynaa autonomous system sida kaaga muuqata single authority maxaa waay shirkadda hormuud waa aragtay xarumo badan ay leedahay imagine each xarun router ayaa yaalo switch ayaa yaalo each xarun client badan ayaa yaalo all these marka si loo manage gareeyo caalamkana loo tuso
hormuud waxay isticmaali doontaa autonomous system number yar isticmaalaysa oo 6 digit ah for example numberkaas marka waxaa lagu qeexaa RFC code-ka reference numberkan hadda 1930 da Google ku qorto waxaa kusoo baxaya how autonomous system works reason behind autonomous system remember autonomous system waagii hore wuxuu ahaan jiray 65535 number la isticmaali jiray inta from 0 ilaa intaas inta u dhaxaysa la isticmaali jiray muxuuna ahaa 16 bit oo ahaa 16 bit hadda waa la ziyaadiyay 16 bit waa la ziyaadiyay 2007 markii la gaaray waxa laga dhigay 32 bit which means 4 billion autonomous system la isticmaali karaa right now okay sida kaaga muuqato fiir shirkaddan oo dhan markay communication sameynaydo maxay isticmaaloodaa this autonomous system isticmaaloodaa si ay ula xiriirto shirkaddan kale this is muhiimadda marka autonomous system uu leeyahay maxaa ka badbaaday networkan IP-diisa oo dhan in lagu gaaro you see all right let's go configurationka markii aan adeegsanayno waxaa qori doonaa router EIGRP hore maxaa soo baranay router OSPF maanta maxaa qoraynaa EIGRP autonomous system numberka 1 2 3 4 5 6 autonomous systemka marka aan sheegno inta node aan ugu qoran do not configure multiple instances of EIGRP on the same router hal router hadaa haysataa ka abuuran EIGRP 1 EIGRP 2 EIGRP 3 EIGRP 4 yeah you can create all of these laakiin problem kaaga imaanayo because hal router hadaa ka abuurta multiple different EIGRPs imagine adiga basawiro hal reer afar Ahmed iyo afar Ali afar Caash haday ku turto kabar confuse amaano okay EIGRP-ga markii aan sameeyno EIGRP-ga waxa waajib ah inuu yeesho wax loo yaqaan router ID remember OSPF-ka muxuu leeyahay router ID oo la hadii router ID-ga aad ka tagto waxa la adeegsan doonaa loopback address-ka la adeegsanaa hadii loopback address la yeesanin waxa la adeegsanaynaa the highest interface IP address adeegsanaynaa EIGRP-ga marka router u sameynayno waxa adeegsanaynaa EIGRP router ID okay configuration-ka aan sameynayna haduu ilaahay okay EIGRP-ga markii aan rabno inaan verify gareeno waxa qoranaa show IP protocols waxa arki doonaa router ID-gayga waxa arki doonaa protocol ID-ga waxa arki karaa key values bandwidth iyo waxyaabahaas arkaynaa let's go okay so marka aan rabo network diriskayga inaan u advertise gareeyo waxa adeegsan doonaa aniga network adeegsanaya kadib maxaa sheegaya network ID-ga aniga aan aqaano si aan diriskayga ugu sheego meesha waxa adeegsan karnaa wildcard bits adeegsan karnaa wildcard muxuu ah subnetkii oo inverse laga dhigay OSPF-ka waajib waa laakiin EIGRP-ga waa sheegi kartaa oo iska dhaafi kartaa si wildcard mask aa u soo yeesho waxaa qori doontaa 3255 waxaa ka jaraysaa subnet maskigaada waxaa kusoo bixi doono wildcard bitska kusoo baxaya and this is wildcard bitskaada okay EIGRP-ga markii aan sheegto one problem aa jiro EIGRP-ga every port yaa loo advertise gareynaa si caqabadaas aa u yareyso for example waxaa haysanaa router 1 router 2 computer EIGRP maxaa sameynaa this interface no loo diraa this interface no loo diraa routerka OSPF ma EIGRP ma yaqaana no wuxuu sameynaa iska block gareynaa si caqabadaas aan u xaqiijino inaynan dhicin waxaa isticmaalaynaa passive interface maxaa leena routerka waxa uu sheeganaa EIGRP remember this interface this specific interface is not allowed to be advertised EIGRP okay xirina passive interface EIGRP neighborkiga markaa rabo inaan qoro waxa adeegsanaynaa show iyo IBO EIGRP neighbor then waxaa noo soo baxaya neighborkayga IP-giisa boortiga iskaga xirannahay secondskii maxay ahayday aan baranay kadibna waxaa noo soo baxaysa last time oo routing table-kaas la update gareeyay again show IP protocols markaan qorno su'aalaha noo imaan kara kamid tahay inta waxaan ugu qoran ilaa 5 qodob qodobka ugu horeeya waxaa arkaynaa routing protocols keena qodobka labaad waxaa arkaynaa router ID-gayga qodobka saddexaad waxaa arkaynaa routerka isticmaalayno inuu internal yahay inuu external yahay okay qodobka afraad waxaa arkaynaa summarization by default oo EIGRP-ka auto summary ma lahan adaa u sheegay auto summary maxaa waaye all networks aad taqaano oo 10 10 10 10 1 10 2 10 3 10 4 inta la diri lahaa waa summarize gareyne hal teen aad diraysa qodobka afraad maxaa waaye source iyo destination-kayga okay let's do the practice marka routing table-kayga aan barano networks-ka waxaa arkaynaa EIGRP arkaynaa EIGRP-ga maxaa aqoonsanaynaa xarafka D maxaa waaye let's see EIGRP okay we had the 30-minute marks muuqaalka waa post gareynaa let's digest wixii hadda aan qaadanay then practice oo waxaan sameynaynaa 10 minute hadduu ilaahay